war degdega oo dad badan la yaab ku noqday oo hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu sheegay in 2 isbuuc aysan ku qaadanaynin in ay qabsadaan caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Arrintaas waxa ay dad badan ku noqotay la yaab. wiilka uu dhalay madaxweynaha Uganda ee muddada dheer xilka hayay Yoweri Museveni ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray sida uu uga in madaxweynihii hore ee dalkaasi Uhuru Kenyatta uusan mar saddexaad dastuurka dalkaasi u ogolayn inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo dhawaan looga adkaaday ninkii uu la safnaa Uhuru Kenyatta. Dadka qaar ayaa sheegay in generaalka uu dhalay Yoweri Museveni uu ku caanbaxay waxyaabaha hadalhaynta dhaliya ee mararka qaar uu ku soo qoro bartiisa Twitter-ka. Generaalkan ayaa loo diyaarinayaa inuu bedelo aabihiis Yoweri Museveni oo madaxweyne ka ah dalkaasi Uganda. Shacabka dalka Kenya ee arkay qoraalka Twitter-ka ee uu soo geliyay wiilka Museveni ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in ay ku wareereen hadalka ka soo baxay wiilka uu dhalay Yoweri Museveni, waxayna isweydiinayaan caafimaad qabkiisa iyo in ninkani maskaxda uu taamka yahay. Laakiin generaalka ayaa mar kale sheegay in ciidamadiisa waa kuwa dalka Uganda ay ku qabsan karaan caasimadda Kenya 2 toddobaad oo kaliya. Hadalkaas dad badan oo ku jira arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda waa ay la yaabeen in qof maqaam sare leh oo darajo noocaas ka jooga dal kale oo dal la dirisa in uu si dhayal isaga soo qoro. waxaad nagala socotaan galka wararka mar walbana waxaan idin soo gudbinaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee markaasi Soomaaliya gobolka iyo caalamkaba ka jira. fadlan haddaad daawanayso oo hore aadan subscribe u saarin channelka subscribe saar, barnaamijkana noo sii share gare adigoo mahadsan.